السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن وناكسن داوديا لدغيسيا kusoo dhawaada barnaamijkii gaarka ahaa ee alaaba isbuuclaha ahaa ee aan kaga hadlaynay wacyiga maanta dalka ka jira. maanta barnaamijkeena waxaan ku lafguri doonaa martin uu noogu yahay Ustaad Axmed Nuur Xaashi. barnaamijka maanta waxaan ku lafguri doonaa ciwaanka ah sidee xal loogu heli karaa kumanaanka arday iyo wax soo bartay. sin ognahay sanad waliba boqol arday ama kumanaan arday baa waxbarashadii ka soo baxdo haddii ay noqon lahayd heerka sare iyo heerka jaamacadeed. balse marka hore waxaan kusoo dhaweynayaa Ustaad Axmed Nuur Xaashi falaqeeyana ah. Ustaad soo dhawow marka hore. aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinayaa maxamed xasan muuse. aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay kulankani wanaagsan aad igu martiqaaday iguna sharaftay inaan kaga hadlo xaaladaha markaasi ardayda marxaladaha haysta ama dhibaatada haysata. waan kaaga mahadcelinayaa Ustaad. sidoo kale kun jeer baan kaaga mahadcelinaynaa waqtigeedii qaaliga ah aada noo soo hortay. sidaba ciwaanka ka muuqata maanta waxaynu falanqeyn doonaa ama aan la fuguri doonaa sida aan xalka ugu heli karno kumanaanka arday wax soo bartay. su-aasha ugu horeyso oo aan doonaya inaad u bidhaamiso dhegeystayaashii daawadayaashu waxay tahay dhibaatada ay kumanaanka arday ee wax soo bartay ay ka cabanayaan. soo dhawow. aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay su-aashaada. haddii aan ka jawaabo fara badan iyo bulshada dhexmarkeedii in badan aan ku sameeyey marka loo fiiriyo dhanka ardayda ayaa waxa ay tahay waxaad arkaysaa in badan oo arday ah oo sanad weliba qalin jebinayso, taasoo ay haddana ay ku leeyihiin baagamoodo ayaan nahnay oo wixii aan soo baranay maanta kuma shaqaynayno ama ma haynaba. taasina waxaa sabab u ah markaad wareysatid qaar ka mid a ardayda waxay ku leeyihiin nin weliba ninkiisii ayuu u dhiibtay waxa uu hanti lahaa ama wixii loo xisaabin lahaa ama wixii loogu shaqayn lahaa. marka qaarna waxay ku leeyihiin wax laga shaqeeyaba waddanka ma yaala. marka isku soo wada aruuri taasi mid ka bedelanna way jirtaa oo annaga fikri ahaan oo maadaama aan ahay consulted la taliya dhalinyarta wax baratay consultationna aan siiyo si ay marxaladaasi ay kaga gudbi lahaayeen. laakiin in badan waxaad arkaysaa ku dhahaya waddanka waxbarashana ma taalo, tacliin fiicanna ma taalo. qaar ku dhahayana waa arkaysaa waayo waxaan baranay maanta waxaan ku qabsanana ma hayna bay ku leeyihiin. balse laakiin waxaasi waa fikri ay iska dhaadhiciyeen, balse laakiin dhabteeda ayaan ka hadli doonaa. Ustaad waa mahadsan tahay. aan kaaga mahadcelinayaa waqtigeeda qaaliga ah iyo sida wacan runtii aada u falanqeynayso una la talinayso jiilka Soomaaliyeed in badan oo ka mid ah ay dalkii ay ka hayaamayaan iyagoo loo fiirinay siyaabo fara badan. Ustaad aad hadalka ku wato su-aasha xigta aan ku weydiinay waxay tahay ma la dhihi karaa ardayda intooda badan waxay maanka gashteen inay ka shaqeeyaan shaqooyin sare. tusaale qof waliba waxa uu doonayaa inuu gaari cad ku socdo, wuxuu doonayaa inuu xafiis ka shaqeeyo. soo ma la dhihi karo marka guud ahaan dadka qof kasta wax barta inuu rabo shaqada la dhihi karo top 10ka inuu helo ma waxay noqon karaysaa marka guud ahaan dadka inay wada noqdaan shaqaale? taa maxaa lagu xalin karayaa? okay haddaan aan ka hadla su-aashaasi labaad, waa run waxaad arkaysaa in badan oo ku dhahaya ama hamigoodii uu aada u sareeya balse laakiin waxqabadkoodii uusan muuqanin. waxaad arkaysaa in badan oo kasoo qalin jebiyey jaamacadaha dibadaha ama jaamacadaha waddanka kuna dhahaya waxaan rabaa meel xafiis inaan ka shaqeeyo. haddaba waxaa su-aasha isweydiin mudan kumanaankaasi arday ma hal xafiisay wada helayaan mise qof walba wuxuu helayaa shaqooyin kala duwan ayuu helayaa.
su-aasha jawaabteedu waxay tahay qofba marxaladii uu shaqaystay ama siduu wax ku raadiyey ayuu wax ku helayaa. haddaba marka waxaan arkaynaa in badan oo ka mid ah ardaydii wax baratay oo imaanaya meelaha fagaaraha ah ama lagu shaaxeeya ama laiskugu imaado kuna dhahaya niyahow anugu shaqadaasi ahayn ma rabo dhahaya, ayagiina sidaasi ay sii yihiin baagamuudo iyo waxa lamid ay yihiin. marka tusaale haddaan soo qaato, maalin maalmaha ka mid ah waxaan la kulmay arday fara badan oo aan kula kulmay magaalada muqdisho degmooyinkeeda meel ka mid ah. marka aan wareystay aan u gudagalay warhaa dhawaad qalijibiseenna maxaad wixii aad soo barateen maanta aad ku samayn laheedeen ama aad ku intifaaci laheedeen, markaas bay waxay igu jawaabeen waxaan ka shaqeyna ma hayno. markaas baan waxaan ku dhahay wadanku shaqo way taalaahe, balse laakiin sida idinka aad u raadinaysaan iyo sida loo raadinayo dad kale u raadinayaan isma laha, balse waxaa loo baahan yahay hamigaada adoo sareeyo in aad la imaadid markaasi ficil ama waxqabad inaad la imaadid. ustaad aad mahadsan tahay. su-aasha xigta aan doonaya inaad u bidhaamiso dhegeystayaashii daawadayaasha waxay tahay, sidee baa loogu doorin karaa fikirkaasi ay inta badan kumnaanka ardayga ay aaminsan yihiin? maxamed, waxaa lagu doori karaa ama lagu bedeli karaa fikirka ay aaminsan yihiin ama waxa maskaxdooda ay ka guuxaysaa waxay tahay in wacyigelin loo sameeyo oo lala fariisto oo lala shaaxeeyo, la siiya fikirka ay haystaan maahina fikir ka duwan oo lagu sii karaya, si markaasi ay u noqdaan dad markaasi waxa ay aaminsanayeen laga soo dejiyo wax ay fikirka ugu wanaagsan uguna macquulsan in wax ku qabsan karayaan lagu siiyo. aada mahadsan tahay. su-aasha xigta waxay noqonaysaa sidatan, ma loo heli karaa xal ay arrinkaa ay kaga mid ka duwan ay heli karaan? waa tusaale ahaan fikirka ku qafilan oo ah in dalkii uusan shaqo lahayn, in qurbihii ay qaarkood muxuu ahay ay sii marayaan oo dhul dhibaataysan oo muxuu ahay magafa ama baddaas ay ku dheecanayaan dad wax bartay dalkiina u baahan. miyaa loo heli karaa shaqooyin ka duwan taa oo ay dhibaatada ay u marayaan? aada iyo aada ayaa u mahadsan tahay. xal waa loo heli karaa, waayo waxaan xal lahayn maba jiraanba. wax waliba oo imaado waxay leeyihiin xal bay leeyihiin, sidii loogu gudbi lahaa iyo sidii loo maaray lahaa iyo sidii markaas loola jaanqaadi lahaa. hadda waxaan ogsoonahnay marka xalkani waxaa loogu heli karaa waxay tahay ardaydaasi ama dadkaasi dhahaya waan tahriibaynaa ama meel kalean ku dhacaynaa ama nafsadeena haligaynaa oo dhahaya, kadibna waxaan aragnay kumanaan arday oo nafsadoodii silac iyo darxumo ay meel ugu dhinteen. xal waa loo heli karaa. xalkaasi waxa waaye qofka in loo sameeyo consultation, loola sameeyo, loola taliyo, loona sameeyo haddana fikirka ay aaminsan yihiin wax laga bedelo oo lagu tarangareeyo inay wax qabsadaan ay wadankana ka shaqaystaan. waxaana xal lagu heli karaa waxay tahay, mathalan hadduu hadda qurbaha tago waxaa laga yaabaa inuu yahay markaasi nin shaqaalo ah, shaqaalahaasina uu yahay wixii uu shaqeeyeyna wadankii dib ay ugu laabanayaan, ehelkiisana uu ka biili karin, dadkiisa wax ka sii karin, caruurtiisa wax ka sii karin, walaalkiisna wax kaga qaban karin. waxaa markaasi xalka lagu gaaraya waxay tahay, mathalan tusaale yar baan ku siinayaa. qof baa wuxuu 3 tarmuus oo midkiiba uu qaadaya 100 galaas oo cabitaan ah, waa 300 oo galaas oo cabitaana wey. marka lagu dhufto 3,000 shilin waa 900 shilin waa 9,000 shilin marka loo bedelo dollar ahaan waa $36 waa ama $35 waa. marka bishii lagu dhuftana waxay keenaysaa waa $910 waa. bal ilaah baan ku dhaariyay nin wadankiisa maanta ku heli karaya $910 waay asbaabta uu u leeyahay maxay tahay? shaqo la-aan baa tala, waa shaqadii meesha ugu hooseeyay aan kasoo qabtay wey. marka anigu dhihi maayo wadanka shaqo ma taa dhihi maayo, balse laakiin xirfadii ay dadku u hirgeli lahaayeen ama ay u howlgeli lahaayeenba meesha kama muuqato. oo waxaan dhihi lahaa in badan oo i dhegeysanaysa ama
muuqaalkaygana daawanayso, waxaan dhihi lahaa wadanka waxa yaala waa shaqo, ha laga faa'iidaysto, wax soo saarka wadanka laga faa'iidaysto. intii loo hayaami lahaa meelaan wadankaada ahayn oo aad ka doorbidaysid inaad wadankaadii xumaynaysid oo aad dhehidid wadankaadii wax ma yaalaan oo wadankaasaa wax yaala, bal waayahay wadanka aad tagday waxa yaala dadkaada ma ka anfici karaysaa, wax ma ugu qaban karaysaa? ustaad aad umahadsan tahay. ugu dambeyntii inkastoo soomaaliya hore ay u tiri u maahmaahday oo ahayd dal aan dalkaada ahayn waa dareen ku joog, ugu dambeyntii maxaad kula talin lahayd? waxaan kula talin lahaa da-yarta ama generationka waxbaratay wadankooda inay ka shaqaystaan. waxaad arkaysaa in badan oo dhalinyar ah oo hadda waxa ay barteen maahina wax kale ku shaqaynayo. waayo hamiga horta wax loo baranayo waxaa waaye si cilmi loo helo waxa aad baratayna aad ku shaqaysan kartid, laakiin had iyo jeer la arki maayo waxa aad baratay inaad ku shaqaysa la arki maayo. mathalan nin doctor ahaa waxaa arkaysaa dukaanla ah, waxaad arkaysaa mathalan nin soo bartay cilmiga soo bartay maamulka iyo maareynta oo ah markaas waxaa arkaysaa macalin aad arkaysaa dugsi quraan ah. marka had iyo jeer waxa aad soo baratay laguma beesgareeyo, waxaa lagu beesgareeyaa waxa aad markaasi wadciga taagan tahay ama waxaa la taagan yahay inaad ku beesgaraysid oo aadan dhihin wadanka shaqo ma taalo, waan ka hayaamayaa, nafsadeydan haligayaa, waa inaadan dhihin, balse laakiin aad ku fikirtaa marxaladaasi aad ku haysataa sida aad kaga gudbi lahayd dariiq waliba ha kugu qaadatee. waxaan dhihi lahaa marka warkayga kusoo gabagabayn lahay ama kusoo gabagabayn lahay ardayda waxbaratay ha ka faa'iidaysato wadanka waa mashruuci badan yahay, wax walba laga soo saari karaa, waa dhaqaale fara badan yahay, balse laakiin waa inaan la imaanaa ficilka. aad baad umahadsan tahay, waan kaga mahad celinayaa al-ustaad axmed nuur xaashi sida wacan aada u bidhaamisay. sidoo kale aan rajeynayo in badan oo kamid ah dhegeystayaasha iyo daawadayaasha ay wax badan dadkii hamigooda u ahaa inay dalkii ka hayaamaan wax badan oo kamid ah ay shaqo abuur u noqon doonto, dalkiina ay wax ka qabsan doonaan. waan kaaga mahad celinaya al-ustaad waqtigaada qaaliga ah oo aada inoo hurtay. kaa wuxuu ahaa al-ustaad axmed nuur xaashi, waan kaaga mahad celinaya waqtigiisa qaaliga ah. halka ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkii gaarka ahaa oo aan ku falanqeynaynay sida xal looga heli lahaa kumanaanka arday ee wax soo bartay ee dalkii ka hayaamayo. tani barnaamijkaani mid lamid aan ku kulmi doono baadiyo isku doona wadeyna sida iyo wadgiliyo. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.